Asalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaad idiso qaab aad ku heli kartaan Bitcoin idinkoo aan lacag ka bixinayn. Marka qaabka waxaad isweydiinaysaan sidee macquul ka tahay adoo lacag ka bixinayn inaad Bitcoin heshid. Marka waxaa lagaa rabaa ama aan idin tusayaa inaad app-kan hadda aan soo wada gelaysaan, waa soo degsanaysaan. Markaas ayaa waxaad dhegeysanaysaan waxa la dhaho podcast. Podcast waa radio oo kaleeto macnaha aan online ahayn ama live ahayn oo aad dhegeysanaysid oo markaa rabtid inaad joogsanaysid markaa rabtid inaad iska daynaysid. Marka haddaad haysatid iPhone waxaad gelaysaa App Store-ka ama haddaad haysatid Google-na Play Store-ka ayaa gelaysaa. Kadibna meeshaan waxaa ku qoraysaa Fountain. Fountain waa app-ka inii sheegayo ay calaamadaas u leeyahay. Open ayaa hadda macnaha aniga all baa soo degsaday laakiin adiga install buu ku dhahayaa. Markaad soo degsatid sidaan buu u eg yahay. Marka waxa talaabada ugu horeysa lagaa rabo waxa weeye inaad meesha profile-ka tagtid oo meesha hadda magacaaga ku yaalo kaleeto ay username-ka ku qoratid. Marka magacaaga qortid kadibna waxaa lagaa rabaa inaad qortid email-kaagana meesha gelisid. Edit profile-kaas aad ku dhufanaysaa waxaad gelinaysaa email-kaaga. Marka email-kaaga gelisid kadib waxaad imaanaysaa meeshaan ay wallet ku taalo. Wallet ayaad waxaa leedahay sameyso. Meeshaan waxay ku tusayaa waa click baa siinaysaa automatically wallet baa lagu sameynayaa. Marka wallet-kaas samaysatid email-kana gelisid kadib waxaa imaanaysaan meeshaan ay podcast ku taalo ama meeshaan discovery ku taalo. Discovery-gan waa meel ay soo bandhigayaan ku leeyihiin dadkan ku durso ama podcast-kan dhegeyso. Laakiin haddaad taqaanid adiga podcast-ka rabtid inaad dhageystid ama qofka rabtid inaad dhageystid meeshaan ayaa ku qoraysaa search ayaa ku qoraysaa topic aad rabtid dooran kartaa. Aniga hadda waxaan kuwaan dhageysanayo kuwa Bitcoin ku saabsan. adigana haddaad topic kale rabtid ama rabtid inaad quraan dhageystid ama wax kale dhamaystid meeshaan ku dhufanaysaa. Marka ku dhufatid wuxuu ku siinayaa tusaalaan tusaya hadda ninkaan oo kaleeto aan hadda dhegeysanayay. Haddaan ku dhufto play baa dhahaysaa 2.5 billion or something just to hedge equally, but you hedge by selling Bitcoin, by shorting Bitcoin. That way, if marka saa ujeedaan meesha kore earning ku taalo calaamadaas ay ku taalo noocaas u eg waxaa ku taalo 1 sats awal waxaa ku taalo 0 sats. Marka haddaan sii dhegeysto waxay ii noqonaysaa 2 3 4 5 boqol. marka inta daqiiqa dhageystid bay ku xiran tahay. halkii daqiiqaba waxay bixiyaan badanaaba 1 satoshi ama 2 satoshi waxay ku xiran tahay qofka dhegeysanaysid ama podcast-ka dhegeysanaysid. Marka satoshi waa maxay? Satoshi waxa weeye markii tusaale ahaan halkii Bitcoin waxay ka kooban tahay 100 milyan oo satoshi. halka dollar uu ka kooban yahay 1 senti 2 senti 3 senti 4 senti 10 senti oo halkii dollar uu ka kooban yahay 100 senti. kuwaan kaleetana halkii Bitcoin wuxuu ka kooban yahay 100 milyan oo satoshi. Marka satoshi waa fraction-ka ama markii la sii jajabiyo Bitcoin weeye. Marka aan intusa hadda intaan helay oo kaleeto aniga hadda waxaan haystaa 1700 oo satoshi. 1700 oo satoshi hal penny kama bixin. Waxaan ku helay dhageysi aan dhageysanayay podcast-yadan aan horey halkan kugu soo sheegay qaybahan ba kamid ah kuwaan dhageystay baan ku helay intaan waliba ka badan baa helay. hadda waa arkaysaa haddaan 7 beri ugu dambeysay waxaan helay 100 kaasaan helay 30 beri ugu dambeysay kontonkan iyo kowdaan halkan ku arkaysaan anaa bixiyay qofkan siiyay laakiin 1800 bay totalkayga waxaan helay noqotay. Marka idinkuna soo degsada saan kala ugu soo degsanaysaa ku dhufanaysaan waa dhageysanaysaan any topic ka helaysaan daqiiqad walba ay dhageystaan waxay siinayaan free satoshi ama satoshi waxaa helaysaa lacag la'aan. Marka app-kan aniga si ila yahay app waxa way aad iyo aad u fiican idea-du hayo ama fikradda ama technology-ga hayo waa technology aan amaleynay inay Bitcoin iyo Lightning ay wax badan ka bedelayso dhinaca sida hadda awal wax la iskula macaamili jiray hadda YouTube-ka iyo TikTok iyo hadda maanta dhan dhegeysanaysid Facebook iyo ma ku helaysid wax la yiraahdo adiga qofka dhegeysanayaan ka hadlaya waxba lacag kuma helo. laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay dhegeysigii aad dhegeysanaysid YouTube oo ama TikTok dhegeysanaysid ayaa lacag loogu siinaya. Marka waa arin program waxa way aad iyo aad cajiib u ah aan aad uga helay laakiin qaabka looga hortagi karo inaysan musuq soo dhexgelin oo sida tusaale ahaan intuu qofka bot samaysto aad intaan video isku furinin oo aad wax ku xadin qaabkaas weli qaabka uga hortagayaan weli warcad kama hayo. laakiin waa meelo aan ay ku soo qoreen barnaamijkaas in ka shaqeynayaan inaysan wax ka dhicin wax la yiraahdo qofku inuusan been intuu idaacad iska furto maanta dhan iska dhageysanayn oo lacag been saas ku helayn waa ka hortagayna bay leeyihiin. Marka waa technology cusub waxa kale oo jirta aan rabaa inaan sheego 100% app-kan weli sidii la rabay ma ahan oo dhisma ku socda. hadda meeshaan ay tusayay aan dhahayay hal satoshi maalmihii ugu horeysay way fiicnayd laakiin maalmaha ugu dambeysay waxa arkaysaa marmar ayadoo mar siira ku soo noqonayso
hadda 2 3 4 5 intee marmar ku gaartay zero kusoo noqonaysaa. Qolada waa weydiiyey aapkan iskale iyo waxaan u qoray tweet ay leeyihiin weli waxaan waxaa jirta ciladaas oo ah macnaha waan ku wadnaa dib u dhis baan ku wadnaa waa ognahay in cilada jirto. Marka waa app cusub oo aan weli 100% ahayn oo dhismo ku socdo, laakiin qofka Soomaaliya jooga oo dhowr jeer soo weydiiyay dad sidee ku heli karaa Bitcoin anoo aan lacag ka bixinin ama wadankii jooga. Waxaan u maleynayaa qaabka ugu shida yar oo ugu fiican inay yihiin. Dhegeyso app soo degso dhegeyso kadibna satooshiyan inkastoo aad waxa helaysid uu wax weyn ahayn oo satooshiyadan hadda aan haysto waa wax dhowr senti ka yar baa u malaynaya lacag badan ma wax aad u yar way sentiyaal way oo doolarka markii loo dhigo. Marka laakiin yaa og Allahu a'lam dhowr sano kadib 10 sano kadib inay 1700 lacag badan noqotaa laga yaabaa. Marka waxaan in kula talinayaa idinkuna soo degsada dhegeysta topic badan oo aad xiiseynaysan baa laga yaabaa inaad ka heshaan dhegeysta podcast wal dhahaa marka dhegeysataan kadibna waxa idin soconaysa free satoshi awalba dadka hadda podcast-yada dhegeysta ayagoo aan lacag ku helin bay iska dhageystaan podcast-yada kale. Marka inta kuwa kale ka dhegeysan lahayd oo waxba aad ku helayn kan inaad dhegeysto oo satoshi at least ku heshid ayaa ka fiican. Marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhegeysigiina. Wixii su'aalaha qabtaan hoos ku soo qora. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.